bootada ugu badan ee jaajuuskaas uu Soomaalida la dhex joogo ninka qalbiga cadaanka ka waxa waay update-kiisa idin haya baaritaan soo sameeyay ma jeclinaan investigative skills-kayga oo journalism-ka iyo waxayga isticmaalo oo iska joog degan laakiin marka arko caamo la khaldaayo ma dhageysan karo ninkan waxyaabaha ugu waaweyn ee beenta uu idinka dhaadhicay waxa kamid ah aniga wax kastaan sheegay way saxsan yihiin waxa leega xun yahay maadaama aan guri ka gatay duurka gurigi duurka laga gatay odaygii lahaa aidin haya guriga duurka uu bal imagine garay sawiro balaadi qof martiye intuu ku imaaday ka waran oo fadhigaagii iyo qolkaagii sariirta iyo maxaa la dhahaa area-daadii dadka intuu u duuduuba dhahay anaa iskale qofkaana aad ku waad caawisa ixsaan baad u samaysaa waa la korsaday lama dhihi karayo 40 jir waaye oo adoption laguma samayn karo dee laakiin waa la caawiyey right ninkan guryahan uu duuduubo labada reer ee iskale baan idin hayaa video baa jira aan soo dhigay macalcadeymihiisa wata codka halaabay oo ku soo celinaya live-kan markaa ka baxo laakiin live-kan intaan ku jiro baan rabaa inaan idinka dabageeyo update-ka kadib live-ka markaan ka baxo update-kii oo cadeymihiisii wata baan idinkeena ani ma aqaano waa la yiri iyo fuustooyin af Soomaaliya iyo waa la sheegay iyo ma jirto tuulo Soomaaliya ku taala oo hal reer degaan baa dhaanta inaad sheegato inaad guri ku leedahay dan inaad Mareykanka dhahdo gurigaana iskale waayo meelaha guryaha Mareykanka laga gato platformyada iyo website-yada waa public waay okay waa public data waay reer Mareykan waa idin salaamay dhammaantiin waxa waaye idinka ma aqaan waxa waaye ninkaad ka xun tihiin ma garanayo ya reer Mareykan waa idin salaamay waxa waaye ninka siduu idin jaaifeysanayo idin leeyahay waa iga xun tihiin guriga uu ku nool yahay martiyuu ku yahay war haddii 40 jir nin dulsaar ku ah oday dulsaar ku ammaan ka xumaana now waxaan idin fahansiinayaa media soo shaqeeyo ninkan strategy koobaad oo soo laabanna sheekada odayga uu ninka la degan yahay iyo reerka iyo waxaan oo dhaw soo laabanayna waxa jirta shaxda soo shaqeysan ku sheegaya markii koobaad markuu arkay Soomaalida oo dhan oo ku kacsan todobari ka horbeeyay Soomaa ilaa todobari baa hawshan socota markii koobaad waayo fiiri ninkan wuxuu markasta sawirtaa beenaale weyn waay beenaale hal xabo runa ma yaqaan markuu Soomaalida la joogo gaalada laakiin markuu la joogo wuu u sheegaa runtu sheegaya laakiin maxaa waaye runta isaga ku saabsan inuu dad soo dhaweeyeen inuu cid cadaana dulsaar ku yahay waxa soo dhan wuu u sheegaa idinka markuu idin imaado gurigii reerka soo dhaweeyay isagaaba iska balano taajirka oday wuxuu la degan yahay 86 sano jira oo qadeeye laakiin oo cadaana waa idin keenaya odayga waa ma hadda magaciisa baaraysaan don't worry cadaymiina waa waaya okay ma aqaano iska daba wareeg iyo waa la yiri waa la sheegay public data waa kuwii Mareykanka jooga waa easy inaad baadha now markuu arkay Soomaalida inay shaxdiisa soo fahantay ya markuu arkay Soomaalida inuu shaxdiisa soo fahantay muxuu sameeyay markii koobaad wuxuu sameeyay waxa la dhaho PR-ka ama public relation-ka markaad xaalad ku jirto right markaad xaalad ku jirto oo uu arkay ninkan dhiiqa inuu dhexda u dhex fadhiyo Soomaalida oo dhan arkeen wuu baxay wuxuu u tagay wariyihii Cabdixafiid right muxuu dhahay aniga ma ogeen saas miya ma ka warhaayo lacagta ma waxa lagu qaataa aniga hadda ka hormay masaajidaan ka diray lacagto Soomaalida main ku nool ninkan maba dhex galaba been waa right okay wuu isna saxay wuxuu dhahay aniga waxba ma ogi marka wuxuu dhahay dhiiqadaan si iskaga bixisaa raali gelin faqiireed buu bixiyay raali gelin faqiireed maxaa waay waano intaan ku dhirbaaxa ku dhaho haddaan ku dhirbaaxay fiiriya haddaan ku dhirbaaxay raali how haddaad u malaysay inaan ku dhirbaaxayna raali how hadda waad dhirbaaxdaya so interviewgii Cabdixafiid uu ka qaaday wuu shaqayn waayay dad waxaan rajaynayaa 300 qof aan la hadlayo inaad tihiin dad wax bartay oo
homework aan idin siin doono live-kan intuu socdo baari karaya cidna ha dhegaysanin aniga ha dhegaysanin qof kale dhegaysanin indhahaagana wax ku aragtaan rabaa okay markii koobaad wuxuu isku dayay damage control wax la dhaho PR-ka iyo communication-ka inaad duubanaysa ma rajaynaya shaxdii koobaad way fashilantay oo ahayd Soomaalida raaligelin faqiiraad si iskaga dhigninaan waxba kala ogeyn haddaad tahay ninaan waxba kala ogeyn sidaad interview u bixinaysaa podcast u fadhiisanaysaa no wax waad og tahay alaabta gaalada waxay dhahaan acting dumb xayawaan baad iska dhigaysaa was dhakinaysaa Allah guys is this live please give to you Sodira inuu live yahay aan hubsadee wow meeqa qof ay daawanaysaa 5 qof waxaas waa wuxuu idin sheegayo okay uu ka warhayaa wuxuu samaynayo Cabdixafiid uu tagay shaxdii koobaad waa shaqayn weyse shaxda koobaad maxay ahayd ama strategigiisa koobaad damage control inuu sameeyo uu dhaho raali ahow indhaha body language-kiisa meedaan arkin interview-gu bixinaya Cabdixafiid waa isla dhegaysanaynaa isla review garanaynaa right ويصير دكي يا ويصير دكي حوجا إنه جب كسي رالي قلين ما بحنايا ومضى الصوماليات حتى ومضى الصوماليات جنريشن كينا هذا عامتهين ووالنتين ذيك مركب وحس ده هاي يقدر وقدر بح وسورة جلويس مركب وهاي سورة جلويس رالي صومالي هذا ور أطق نيجي قال كأطق روبنسون أرد رالي قلين تإنجليش كوشاك shaxdii koowaad ma shaqayn weyso oo raali gelin beena in la bixiyo iyo inuu dhaho xama ogeyn way la qaraxday laba bari ka hor interview-ga Cabdixafiid siiyey way la qaraxday way shaqayn weyse wuxuu u tagay inay isku reer yihiin oo media waxba saasa ka aqoonin hadduu ka yaqaanana munaafiq waaye because wuxuu weydiinayay wax dhan waxay ahaayeen waa layga xun yahay annaga reerkeena waa sidaas raxanweynima laygula dagaalayaa dad badan oo raxanweyna oo successful oo nadiifa oo magaca Soomaaliyeed aan ku tuugsanin oo aan ku qaraabanin oo aan cadaanka fuusta u riixanin oo aan jaajuus ahayn oo ilaahooda yaqaanaan garanaya okay laakiin maadaama dadkii qabiil madax maray muxuu sameeyay sidoo u hadlayay Cabdixafiid iyo sidoo u hadlayay markuu u tagay ninkan ay isku reerka yihiin markuu wareysanayo waa kala labo uu soo fariistay kaarkii qabiil kula soo bax shaxdan ka daba geynaya game blanka ka daba geenaya kaarkii qabiilku la soo baxay tolaay aniga waa la dhibaateeyay waa la iga xun yahay waxba inalooma ogola wadankii baarlamaanka Soomaaliya ugu badan horta arrinta Soomaaliya ma ahayn arrinta Mareykan bay ahayd ninkan Soomaaliya arrintii u dubay uu geeyay baarlamaanka Soomaaliya dadka ugu badan waa reerka uu ka dhashay waa dad badan oo sharaf laana ku jira uu ku qaraabanaya buugiisa waxa ku qoran firi hadduu ninkaasi ay ka tahay reer jacayl ma wuxuu ku qori lahaa buugiisa ku qoran tahay waynu isla review garayn karnaa kuwiina wax akhriya waad baari kartaan okay waad baari kartaan buugiisa hooyadiis iyo qabiilkiisa uga ballaarinaya reerkooda wuxuu leeyahay firi waa la yasaa waan hoosaynaa dadkayga waxay ku xirxirtaan gacmaha qardhaas iyo waxaas markaan joogay Soomaaliya anu markasta kuma qanacsanayn qofkaan ahay buugiisay ku qoran tahay reerkiisa uu ka dhashay oo hadda kaarka la soo baxay qabiilka reerka uu la dhashay 2018 buubuuga uga ballaariyay hooyadii dhashay reerkiisa xataa iska dhaaf hooyadii dhashay wuxuu dhahay hooyaday waxa jirta episode oo uu ka sheekaynayo wuxuu dhahay hooyaday markaan weydiiyaan ku dhaho goormaan dhashay hooyaday waxay dhihi jirtay ma garanaya xilligaad dhalatay ma aqaan geed baad ku ag dhalatay ninkan waa 40 jir wuxuu dhashay dawladdii markay jirtay hore ee Siyaad Barre 40 years old waa 40 years old why sidoo sheegtay why probably waxa laga yaabaa 43 44 inuu jiro right xilligii Siyaad Barre dadkii dhashay maan la garanayn meesha ku dhasheen iyo isbitaalada iyo wixii oo dhan wuxuu dhahay hooyaday waan la yaabay buu dhahay markaan Mareykanka imaaday oo aan arkay sida dadka birthday-gooda ay u garanayaan waan yaabay buugay waxaas ku qoran yihiin
interviewga dambe uu tagay waraysiga dambe uu tagay ninka ay isku reerka yihiinna victim card buu xoqonayaa uu leeyahay reernimo laygu haysta war cid reernimo kugu haysata ma lahane gaalkan ingiliishka markaad u tagaysay oo buuggan aad qoraysay Soomaali waad ka ballaarisay ilaahay waad ka ballaarisay wuxuu dhahay ilaahay muxuu nin u yahay nabiyada miyadan arkin miyadan arkin ingiliishkii baa idinku dhiba miyadan arkin kuwayna ingiliishka boqol jeer baan idinku dhahay ingiliishka barta waxaasoo kale aad dhigay hadhow af Soomaali idinku sheekeynaya ingiliishka barta haddaadan baranina maskaxdaa ku fadhinaysa maanta adduunka informationka English buu ku socdaa xataa meel baa laga wareysanaya uu fadhiya wuxuu leeyahay afkiisa siduu ka dhahay waaya maxay nabiyadu naaga ugu jirin hal naagoo nabiya ma jirto buugiisa marka laga tago waxaa jirta speaking gigs wax la dhaho waa lagu wacayaa meesha dadka wada qudbadaynaysaa waad la hadlaysaa waxaad uga sheekeynaysaa buugaad soo bandhigtay wuxuu yahay waxaasoo dhan kadibna waad u sheegaysaa gaalada markuu la jooga annaga ma ag joognay laandheerayaal ma ag fadhiyey laangaabayaal ma ag fadhiyey gaala ag fadhiday nebiyada wuxuu dhahay naaga kuma jiraan maxaa khaldan diintii horta mar walba ka ballaariyay iyada okay fine qabiilka uu hadda ku qaraabanayo buuggiisay ku qoran tahay inuu raxan weyn yahay buuggiisa ay ku qoran tahay inuu raxan weyn yahay ugumana qorna in uu reerkaas ku faanayo oo uu ku qanacsan yahay cidda uu yahay waayo waa reer Soomaaliyeed dhalinyaro badan oo reer Baydhabo ay ku xiran waa dad ilaahay maaragtay karaameeyay dad wanaagsan iyo dad successful iyo dad horumaray leh buuggiisa wuxuu ugu qoray reerkiisa maysan ahayn jacayl uu u qabo reerka fahma idinku uguma qorin buugga way ku taalaa wuxuu ugu qoray si uu gaalada ugu sheego inuu dulmana yahay identitygiisa uusan ku qanacsanayn in la gumaystay waxaasoo dhan baa buugga uu ka sheegayaa xataa wuxuu leeyahay reerkeena aniga maxaa la dhahaa marmarka qaar markaan Soomaalida dhex joogo waa ka dhuntaa inaan sheegto reerkeena interviewga hadda markuu Soomaaliga ku hadlayo u tagay ninkan ay isku reerka yihiinna muxuu idinku sheekeeyay anigu dadkan ka dhashay waa dad wanaagsan dadkaygu war dadkaaga lagama hadlaynin sheekadan waa individuality waa shakhsiyadaada waa adiga qofka aad tahay marka shaxda waa 3 step waay markastana uu sameeyaa oo uu dhiiqo ku jiro saddexdan talaabo maxay tahay gaalada u tag waxaad rabta Soomaalida ka soo sheeg been iyo qashin iyo wax kasta isku dar soo laabo marka lagugu soo ogaado qof kasta oo ka soo hadla maxaa leedahay wuu iga xun yahay although aadan lahayn wax laga xumaado cadaynteedina la hayo marka taas shaqayn weydo la soo bax kaarka qabiilka maaragta stepka labaad kaarka qabiilka la soo bax waxaad leedahay waa lay dulminayaa okay way shaqayn weyda ma aha dhinacan uu ka soo wareegay wuxuu dhahay aniga waxaan ka hadlayay dulmiga oo lagu hayo reeraha oo 0.5 ka ah war sheekada Mareykan ay taagneed shaxda kale aad u isticmaalna waxa waaye waan fahansiinayaa mawduuca uu bedelayaa markasta oo dhiiqa dhexda uga jiro wuu bedelayaa mawduuca wuu wareejinayaa markasta anytime oo lagu hayo isla markiiba mawduuca uu wareejinayaa markii hore maxay ahayd Soomaalida Mareykanka iyo dadkan siyaasiyiinta ah ee Soomaalida Mareykanka maxaad fuusta ugu soo riixday dadkan waynu ognahay maanta dadka wax biilasha la siiyo wadankii jooga qurbo joogta ugu badan ee qadaysa waxay joogaan Mareykane haddaad fuusta ku riixdo maxaad ka faa'iideysaa beenta u sheegaysaa oo aad xataa masaajidkii yaa xasuusta markaan idin dhahay video aan sameynay idin dhahay qolooyinkan cadaanka ah ee sameeya iskuulada shooting gareeya masaajidada way aadi doonaan masaajid baa lagu gubay Minnesota ma ogeyn laakiin waan sii cabiray ninkan English buu ku hadlayaa gaalada hal dhig bay wax ka maqlaan an average Americanka qofka ah cadaanka xataa ma yaqaano biology waxa la dhahaa geography xataa ma yaqaano haddaad dhahdo caasimada Jamaica ii sheeg ma garanayo hal dhig baa waa dad propaganda sidii loogu dhagaha weynaadeen waa cadaanka hal dhig bay wax ka maqlaan dadkii uu sheekeeyay marka ninkan right masaajida la gubay okay markii uu tagay Cabdi Xafiid uu tagayna
muxuu iska dhigay inuusan waxba kala ogeyn aniga waxba ma kala ogeyn waa khaldanaa wuu halkan ay ka baxday okay haye waaya waa laga soo tegey wuu baxay wuxuu tegey kaarkii markuu arkay inuusan shaqaynayn oo commentiga soomaalida dhan u gashay dheheen waxa annaga ha noola imaanin raaligelin baan bixiyey ninkii caddaanka ah Robinson intaad u tagtid waxaad dhahdaa waan cabsanaa ku dhahay qaar baa u qorayey orod bax English ku soo hadal raaligelin ku bixi kuma bixinin xataa podcastiga ciwaankii lagama bedelin buuggiisa soo muuhayn Call Me American podcastiga still waxa ku qoran hadda idinka tusinaya laptopkayga ciwaanka wuxuu reer Muqdisho ah oo ka hadlay musuqmaasuqa Soomaalida Mareykanka soo ninkan Soomaalida Mareykanka markii si fiican ay u kululeeyeen oo uu ogaaday in la hayo waxaan ka hadlayaana Soomaali oo dhan yar waxaa jira inuu munaafiq yahay ku faasinaya oo aan soo ogaaday yar waxaa jira reer Maine ah oo jareer weyne ah oo wax ka noqday magaalada isaga iyo walaalkiis daawade adiguna fikirkaaga nagula wadaag qaybta comment-ka